بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Samir Xasan Xuseen degan magaalada Marburg. waxaan jeclaystay inaan clip yar maanta ummadda Soomaaliyeed ee degan dalka Jarmalka la wadaago. clipkaas ku saabsan arrimaha qaxootiga ama dadweynaha negative la siiyay iyo kiisaskooda wixii ka soo cusboonaaday. sad la socotiinba qolada immigration-ka ama qolada maxkamadda waayahan dambe waxay bilaabeen ama badatay in Soomaalida la siiyo negative. marka negative kaas oo diidmo ah, negative ka loo jeedo diidmaas oo ku badatay Soomaalida, taas oo ugu andacoonaya mar walba in wadankii Soomaaliya uu sidii hore iska soo dhaamay ama ka soo hagaagay xaaladihiisa. sidoo dadaba ahaatee maxaa laga doonayaa marka dadyowga noocaas kale ama kiisaska noocaas kale la kulma negative la siiyo? waxyaabaha laga rabo inay sameeyaan maxay tahay? marka qofka negative la siiyo, waa negative ka koowaad waxa siinaya qolada la yiraahdo Bundesamtiga ama immigration-ka. negative ka labaadna waxa bixiya qofka appeal buu ka qaadanaya, maxkamad buu tagaya, maxkamadii lawyer-kiisa wuxuu qabanaya waxa la yiraahdo appeal kaas oo maxkamadda ama Verwaltungsgericht waxa la yiraahdo u gudbinayo. maxkamadaas mar labaad uu qofka wareysi kooban la yeelanayso. wareysigaas kooban ee la yeelatana waxa suuragal ah hadba qofka dacwadiisa qaabka u dhigan tahay qusaysa. marka ugu dambeysna waxa suuragal noqon karto in qofkaas mar labaad haddana negative loogu celiyo. okay, qofkii marka positive hello waa falilah alxamdu, waa sidii la rabay. marka qofka negative la siiyay oo mar labaad negative la siiyay, jaanis nooca ayuu leeyahay. jaanisyo badan uu leeyahay oo kala way jiraan, laakiin intaan jaanisaska aan loo gudbinba waxaa hortaagan ama taagan qoladan la yiraahdo Auslander biwaldaha ama qolada sharciyada qaabilsan iyo dadka inay sharciyada u dheereeyaan ayaa waxay sameynayaan in qofka ay culays badan saaraan ee dhahan orod keen warqado passport keen, haddii kale waxaad weynaysaa shaqadaada, haddii kale waxaad weynaysaa osbuldungkaaga, haddii kale waxaad weynaysaa lacagaha ceerta aan ku siinaan kaa jaranayna. adiga qof waxaa la saaraya culaysaad fara badan. marka qofka markii culaysaad badan la saaro, culaysaadkaas waxay sababaysaa qofka in asagoon tala badan ka haysanin ama aan arrinkaas loo diray ama wax loo dirayo aan aada uga fikirin in uu uu go-aan degdeg intuu qaato uu keeno waraaqado markaas asaga nafsadiisa halis ku ah ama dhibaateyn kartaba sababi kartaba xataa in wadankii uu ka yimid markaas dib loogu celiyo. marka qofka markii culaysaadkaas noocaas ee la soo gudboonaadaan, waxaa habboon in uu talooyin badan weydiiyo dadka arrimahaas yaqaano ama ku takhasusay, haddii ahaan lahayd qolooyinka magaalada markaas uu joogo, haddii ahaan lahayd diyakooniyada, haddii ahaan lahayd lawyer-kiisa, haddii ahaan lahayd gudoomiyaha jaaliyadaha ama jaaliyadaha meesha ka jira ama dadka caawiya. intaas inuu la kaashado uu talooyin weydiiyo, uu yiraahdo maxaa ila habboon oon qabtaa, tallaabada aan qaadi karaa maxay tahay, inuu wax badan ogaado si dhibaatooyinkaas u imaanayo uga badbaado. maxaa yeelay qoladan Auslander biwaldaha la yiraahdo waxay isku dayayaan had iyo gooraab inay culaysaad badan ku saaraan si markaas aad warqadaha ama haddii passport noqon lahayd, haddii wax kale noqon lahayd, lagaa doonayo inaad keentid. markii aad haddii aad diididna kuu daran, haddii aad ogolaatidna kuu daran. maxaa yeelay haddii aad keentid waxa waxaa suuragal ah in waraaqadaas aad keentay dib lagugu celiyaba, haddii passport haddii wax kale ahaan lahayd wax u dhigmo. marka haddii aad diidid oo tiraahdo oo diidma qayaxan aad usoo istaagto oo tirahdid aniga ma keenayo warqadahaas oo suuragal ma inaan keeno, haddaad tirahdidna maxaa ku imaan kara? waxaa ku imaan kara cawaaqib ah in qofka tashiilaadka u heli jiro in laga jarto. marka maxaa laga rabaa qofka inuu wax diidana lama rabo, inuu wax yeelana lama rabo. inuu qofka meermeeriyo marba luqo ka bixi karo ka baxo, marba siduu yeeli karo inuu sameeyo habboon. marka Soomaalideena maxay sameeyaan badanaa ama dhalinyarada diidmada la siiyo, haddii ama ha ahaato aqoon yari ama ha ahaato experience aysan ka haysan arrimahaas. qofkii asagoon arrinkaas aan wax badan ka ogeyn ayaa la leeyahay orod keen warqad hebel ama orod keen passport hebel
وبحيا ماشي لو درو آدية أسوق محل هي ورقته أما وحي مكان لو دري لو أرديو كينيا تاسا waxay sababi kartaa marka qofkaas oo sida rabeen bay maxaa in qofkii dib loogu celiyo marka intaan maxaa lahayay wixii aad sameeynaad marka hore maxaa aad ka fiirsi badan sameysid ayaa wanaagsan oo aad la tashatid marka maxaa lahayay dadka aqliga iyo cilmiga u saaxiibka ah oo arrimahaas maxaa lahayay markaas aad ugu dhundaloolo arrimahaas maxaa lahayay waa arrimo soo batay oo Soomaalida aad ugu soo farabatay in Soomaali badan maxaa lahayay ay waraaqada ay ka dhibaateen kara inay keenaan marka maxaa ama asoon experience badan ba kaysanin inuu maxaa lahayay baxo maxaa lahayay safaaradii qabto oo maxaa lahayay soo saaro maxaa lahayay passport soo sameysto asagoo ogeenba ama ku dhahayaba maxaa lahayay passportka horta muxuu faa'iido leeyahay marka hore la raba qof maxaa lahayay inuu ogaado passportka maxaa lahayay wuxuu keeni karo faa'iidadu leeyahay faa'iido isagu lahayn maxaa ii keeni karo maxaa lahayay u doontay waxaas oo horta marka qofka is weydiiyo kadib marka maxaa lahayay talooyin badan ama talo bixin badan haysto maxaa lahayay meeshaas ama waxaas uu doonayo asaga inuu sameysto laakiin dad maxaa lahayay aad iska ordo tiraahdo maxaa lahayay waxaan keenayaa maxaa lahayay warqad hebel ama passport hebel ama kan hebel maxaa lahayay ama mid kale to arimaas maxaa lahayay idan in aad looga fiirsado waxay tahay maxaa lahayay lawyer badan xataa waxa jira qofka asoo hadan lawyer hadan cilmigii lawyernimada leh ama maxaa lahayay in lagu ixtiraamana mudan haddana waxaad malaysaa maxaa lahayay marka arrimaha maxaa lahayay markaas adiga kugu tacalluqo inuusan maxaa lahayay si fiican maxaa lahayay usan ugu bisleen ama usan wax badan usan ugu ogeyn marka maxaa lahayay uu lawyer runtiisa ku dhawaateen karo maxaa lahayay wax badan ba usoo noolaa oo dadyo badan maxaa lahayay aan ka caawiyo arrimahaas in lawyeradoodiiba maxaa lahayay ay gud u qodayaan maxaa lahayay qofka inuu ku dhacay doonayaan marka maxaa lahayay taasna lawyerada ama waxa noqon kartaa maxaa lahayay lawyer asaga marka maxaa lahayay u helinaya dawladda dhankeeda u janjeero noqon karaa waxay kaloo noqon kartaa maxaa lahayay lawyer aan ogeyn dhibaatada maxaa lahayay qofkan u imaan karto doo xasli imaado marka maxaa lahayay arrimahaas lawyer badan oo kala sheekaystay marka ugu dambeysay maxaa lahayay madaxda jaaliyadda dhan iska wareysanay arrimahaas maxaa lahayay Soomaalida kusoo kordhay sidoo kale waxaan aad iskaga wareysanay ama maxaa lahayay talaada la soo dhaafay aan aad uga wada hadalnay madaxda safaaradda ee dhammaan maxaa lahayay ay kan inay talooyin badan ka siiyaan Soomaalida maxaa lahayay waan ka codsanay waxaan codsanaynaa marka maxaa lahayay ama Soomaalida aan ka codsanaynaa nafsirkooda in marka hore maxaa lahayay ay ayaka tala bixin badan raadsadaan waxa la yiraahdo maxaa lahayay waxa jirta baqaato ishtaale ama meelo far badan oo maxaa lahayay talooyin dadka siiya oo maxaa lahayay oo aan waxba lacag aan laga qaadin maxaa lahayay ama cadaan ha ahaato ama dad Soomaaliyeed kugu luqad ha ahaato waxa jirta meelo badan oo maxaa talooyin aad ka raadsan kartid oo talooyin mustaqbalkaaga ku anfacayo noqon karta marka arrimahaas inaad ku dadaashiin ayaan ka codsanayaa waxaan idin rajeynayaa khayr fara badan iyo caafimaad waxaan rajeynayaa ilaahay inuu koronahan iyo xaaladahan lagu guda jiro ee hadda soo kordhay Jarmalka aad ugu soo ziyaaday inuu ilaahay naga koriyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh